halkan ayuu ka bilaabanaya filimkeena maanta. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Cindy. Uraya leedahay waxayna joogtaa kayntan cidlada ah. walaasheedii ka yareed ayaa u imanaysa iyadoo hortiisa, kadibna waxay ku leedahay biyo ayaan u baahanahay. kadibna waxay siinaysaa biyahan, aad ayay u daaran tahay, waxayna cabaysaa biyihii. kadibna way ka cararaysaa, laakiin walaasheed waxay ku leedahay ka fogaan kaynta, iyadoo u baqaysa walaasheed. Cindy waxay ku raaxaysanaysaa kayntan, waxayna dhex joogtaa maalmo kooban. geedkan miraha ayay arkaysaa Cindy, kadibna mirihi ayay kasoo goosanaysaa ilaa markii dambe ay afka gashay. isla markiiba waxay tubaysaa mirihii ay afka gelisay. Cindy aad ayay u faraxsan tahay, waxayna ku faraxsan tahay jawigan quruxda badan ay joogto. laakiin markiiba cod ayay maqlaysaa, way isku naxaysaa, wayna shakiyeysaa, way soo dhaqaaqaysaa, waxayna raadinaysaa meesha cod ka imaanaya iyadoo aad u baqsan. kadibna waxay fiirinaysaa hareeraheeda oo dhan. markiiba waxay kusoo jeesanaysaa halkan, laakiin waxay arkaysaa ninkan halkan taagan. Cindy way isku naxaysaa, waxayna fiirinaysaa ninkii, waana dhinkan dharka militariga qaba, waxauna wataa gaariga caruurta, sidoo kale mindi weyn ayaa u xiran. isla markiiba way fiirinaysaa iyadoo aad ula yaabtay, waxayna isku dayaysaa inay meesha ka baxsato. way kasoo cararaysaa, waxayna soo gelaysaa kaynta iyadoo uurkii gacanta ku haysaa. Cindy way soo ordaysaa, waxayna doonaysaa inay nafteeda badbaadiso iyo sidoo kale ilmaha ay caloosha ku hayso. gadaal ayay soo fiirinaysaa ilaa markii dambe ay kaga dhuumatay meeshan. ninkii dilaaga ahna waa uu daba joogaa, waxa uu raadinayaa weli gabadhii. afka ayay qabsanaysaa Cindy, ninkii dilaaga ahna waa uu ag taagan yahay, xagga hoose ayay ku jirtaa, mana uu arko. waxayna isku dayaysaa inay halkan ka badbaado. ninkii dilaaga aha waa uu iskaga tegayaa. markiiba waxay kasoo baxaysaa geedihii ay ku hoos jirtay, laakiin markiiba waxay arkaysaa walaasheed oo qaylinaysa, uguna yeeraysa magaceedii. Cindy waa isku naxaysaa, isla markiiba way ku qaylinaysaa, waxay ku leedahay aamus, laakiin markiiba waxaa maqlaya ninkii dilaaga ahaa, waxayna ku leedahay tartiib u soco. ma oga gabadhan yar waxa meesha ka socda, laakiin markiiba way isku naxaysaa gabadhii. waxayna arkaysaa ninkii dilaaga ahaa oo walaasheed dhabarkeeda dama taagan. way isku naxday Cindy, waxayna ogaatay in gadaasheeda la taagan yahay, laakiin markiiba waa uu qabtay. halka dilaagii uu ag dhiganaya baabuurkii ilmaha yarka lagu qaadayay. kadibna waa ay qaylinaysaa, laakiin markiiba mindi ayuu la soo baxayaa. iyadoo qaylinaysa ayuu mindidii gelinaya, kadibna waxa uu kala soo baxaya ilmihii caloosheeda ku jiray. markii uu hawshiisii soo dhammaysta ayuu imaanaya gabadhii yartahayd oo halkan ku jirta. waa ay baqsantahay, waxayna raadinaysaa walaasheed, laakiin markiiba wuu imaanayaa. aad ayay u fiirinaysaa ninkan, mana oga waxa meeshan ka socda, laakiin markiiba waa uu salaamayaa. walaasheedna iyadoo cabsanaysa ayay salaantii ka qaadaysaa. walaasheed ayay soo raadinaysaa iyadoo aad u naxsan, laakiin waxay arkaysaa dhiigan meesha daadsan. ilaa markii dambe ay dul timi walaasheedii oo meyda, ilmihii caloosheeda ku jirana uu la baxay ninkii dilaaga ahaa. muddo fara badan kadib saaxiibayaal, waxaa arkaynaa ninkan gaariga wata waxaa lagu magacaabaa Raymond. sidoo kale waxaa la socota xaaskiisii oo lagu magacaabo Darlin. uur ayay leedahay xaaskiisu, waxa uuna usoo kaxeeyey meeshan kaynta si xaaskiisa iyo isaguba halkan ay waqti ku qaataan. aad ayay u faraxsan tahay, laakiin markiiba ninkan booliska ayaa istaajinaya, waxa uuna u imaanaya gaarigii ay saarnaayeen. muraayada ayay dejinayaan, waa uuna la hadlaya, waxa uu ku leeyahay keena dukumentiyadiini. isla markiiba ninkan dukumentigii gaariga ayuu soo saaraya, waa uuna tusaya, laakiin waxa uu sheegaya ninka askariga in halkan ay ka dhacda dhacda aad u fool xun. kadib markii gabar lagu magacaabo Cindy nin dilaa ah uu si xun u dilay, kadibna uu kala baxay ilmihii caloosheeda ku jiray. Darlin iyo saaxiibkeeda waa ay walwalayaan ilaa markii dambe isaga soo dhaqaaqeen. kadibna waxay imaanayaan gurigan, gaariga ayay kasoo degayaan. gurigana waxaa degan Raymond walaashiis. isla markiiba Raymond walaashiis ayaa furaysa iyadoo aad u faraxsan, waxaana lagu magacaabaa Marta. aad ayay ugu faraxsan tahay inay aragto walaalkeedii iyo sidoo kale xaaskiisa. Raymond markiiba wuxuu ku oranayaa Darlin, waan soo noqon doonaa, waxaana kaa maqnaan doonaa saacado yar oo kooban, lasii joog walaashay. Marta waa uu ka tegaya isagoo gaarigiisii ka haystay, waa ayna macasalaameynayaan. Darlin guriga ayay gudaha usoo gelaysaa, waa ayna la yaaban tahay gurigan xaaladiisa. kadibna waa ay fiirfiirinaysaa ilaa markii dambe aragtay ilbaabkan iska xiran, korkiisana uu ku qoran yahay cid furi kartaa ma jirto. kadibna Marta ayay weydiinaysaa, laakiin waxay u sheegaysaa inuu yahay ilbaab khaas ah. Marta waa ay soo dhaweynaysaa, waxayna u karinaysaa cunto. halkan ayay isaga baashaanayaan, laakiin markasta Darlin waxay la yaaban tahay gurigan sida uu samaysan yahay, iyadoo fiirinaysa daaqadihii guriga, waana daaqado awdan. waa ay naxsan tahay, waxayna la yaaban tahay dabeecadda halkan ka jirta iyo gurigan sida uu samaysan yahay. isla markiiba banaanka ayay soo baxayaan, waxayna fadhiisanayaan halkan. waa ay sheekaysanayaan Darlin iyo Marta. kadibna Marta waxay ku leedahay, walaalkii waxaan mudayay marka uu ku guursanayay inuu ku xumayn doono anigoo aad uga naxsan, laakiin mardama ayaan ogaaday inuu yahay nin fiican. isla markiiba cod ayay maqlayaan gadaashooda ka yeeraya, waa isku naxaysaa Marta, waxayna usoo dhaqaaqaysaa dhankii cod kasoo baxayay. mindidan ayay hore usii qaadanaysaa, waa ay naxsan tahay Darlin, laakiin markiiba Marta waxay soo aadaysaa dhinaca uu codku ka imaanayo. way usoo dhawaanaysaa iyadoo aad u naxsan, halka Darlin ay aad u baqsan tahay, laakiin markiiba Marta waxay ogaanaysaa inaysan halkan cidi joogin. waa ay kasoo dhaqaaqaysaa, waxayna ku leedahay cid halkan joogtaa ma jirto. mindidii ay soo qaadatay ayay barteedii ku celinaysaa. kadibna waxa ay soo kaxaynaysaa Darlin, gurigii ayay gudaha usoo gelayaan. mar kale waxa ay la yaaban tahay Darlin sawiradan faraha badan ee guriga ku sharaxan, laakiin markiiba albaabka ayaa lasoo qarqaraacaya, waxayna fiirinayaan dhankii uu albaabka ka xigay. Marta cabsi ayay muujinaysaa, waxayna isku dayaysaa inay qofka albaabka qaraacaya la hadasho, waxayna ku leedahay kuma ayaa tahay, laakiin markiiba
ilbaabkii ayay furaysaa iyadoo soo qaadatay ushan aadka u weyn. halka Darlin ay isdiyaarisay laakiin markiiba gabadhan oo lagu magacaabo Lorta oo ah saaxiibadeed ayaa ilbaabka soo qarqaraacay. Lorta waxay ku leedahay gaariga ayaa arkay sidaa darteed ayaa idinku soo leexday. kadibna waxay isbaranayaan Darlin laakiin markiiba gabadheedii ayaa u qilinaysa oo lagu magacaabo Betty. waxay ku leedahay waa daasanahay soo baax waa idin soo laabanaya ayay ku leedahay. kadibna gaariga ayay soo karaysaa iyada iyo gabadheedii hore ay soo dhaqaaqayaan laakiin markiiba gabadheedii waxay dareemaysaa iyadoo keynta dhex socota codkan aadka u naxdinta badan. isla markiiba keynta ayay fiirinaysaa iyadoo raadinaysa meesha cod ka imaanaya laakiin waa ay ka weynaysaa ilaa markii dambe isaga soo dhaqaaqday. Marta iyo Darlin halkan ayay isaga baashaalayaan waxayna daarteen muusig aad ayay u faraxsan yihiin ilaa markii dambe ay daashay Darlin iyadoo uurkii gacmaha ku haysa halka Marta ay weli ciyaarayso. laakiin markiiba ilbaabka ayay furaysaa waxaana arkaysaa ninkii dilaaga ah hortaagan isla markiiba ilbaabka ayay ku celinayaan iyagoo soo qaatay bir. Darlin markiiba birtan ayay ku dhufanaysaa ninkii dilaaga ah laakiin markiiba waxa uu madaxa ku dhufanayaa saaxiibteed. kadibna ilbaabka ayay soo xiraysaa waxay isku dayaysaa inuusan ilbaabka gudaha usoo gelin ninkan dilaaga ah ilaa markii dambe ay soo qaadato ushan. aad ayay u naxsan tahay waxaana isku dayaysaa inay saaxiibteed difaacdo laakiin saaxiibteed waa ay suuxsan tahay waxaana kaga dhacday madaxa bir. daloolka ilbaabka ayay fiirinaysaa iyadoo isku dayaysa inay fiiriso ninkan dilaaga ah meesha uu joogo laakiin markiiba mididii ayuu uga soo dusinaya halkan waa isku naxaysaa wayna qaylinaysaa ilaa markii dambe ka carartay albaabka. Darlin waxay gashay xaalad mugdi ah waxayna u diyaarsan tahay inay difaacdo ilmaheeda caloosha ku jira iyadoo aad iskaga ooyeysa. Betty guriga ayay dib ugu soo laabatay halka ninkii dilaaga ah uu kor ka arkayo isla markiiba albaabka ayay soo qarqaraacaysaa laakiin markiiba waxay moodaysaa Darlin inuu yahay ninkii dilaaga ah ilaa markii dambe daloolka ka aragtay inay tahay gabadhii lagu magacaabayo Betty. laakiin Darlin waxay ogtahay in dilaagii uu ku naban yahay gabadhan ilaa markii dambe ay aragtay gadaasheeda dambe ninkan taagan waa ay qaylinaysaa laakiin markii ilbaabka ayay ka furaysaa ilaa markii dambe ilbaabkii ayay isku celisay waxayna gudaha usoo gelisay gabadhii Betty ahayd. isla markiiba iyadoo qaylinaysa ayay weydiinaysaa ninkan laakiin waxay ku leedahay ninkani waa nin dilaa ah niyuuska ayaan ku arkay waxauna doonayaa inuu ilmaha uurkayga ku jira uu qaato. waxay weydiinaysaa gabadhii yarta ahayd gurigan wax qori ah ma yaalaan laakiin waxay u sheegaysaa inuu qolkan ku jiro qori aabaheedna uu leeyahay. Betty waa soo ordaysaa isla markiiba ilbaabka ayay furaysaa waxayna gudaha usoo galayaan qolkii mamnuuc ahaa in la galo. isla markiiba qolkii ayay gudaha usoo galayaan halkana waxaa yaala saaxiibayaal hilib aad u fara badan waxaana iskale gabadhan Betty ah aabaheed waxauna ku kaysadaa hilib aad u fara badan waxauna kasoo ugaarsadaa keynta. way u sharaxaysaa hilibkan meesha uu ka yimi laakiin waa ay ka baqsan tahay ilaa markii dambe ay armaajadan furtay kadibna waxay kala soo baxaysaa Darlin qorigan laakiin xagga sare ayay arkayaan inay ciid ka timaadee waxayna ogaanayaan in ninkii dilaagaha uu taagan yahay way kasoo cararayaan isla markiiba. Betty hooyadeeda waxay taagan tahay albaabka iyadoo aad u naxsan waxayna ku leedahay albaabkay ka furo codkoodii ayay maqlayaan waxayna ogaatay inay halkan musiibo ka jirto. isla markiiba ilbaabka ayay ka furayaan laakiin ninkii dilaaga ayaa soo boodaya ilaa markii dambe ay qorigii ku qabatay Darlin laakiin markiiba gabadhii ayuu afduubanayaa halka Darlin ay ilbaabkii soo xirtay. isla markiiba gabadhan ooyeysa ayaa waxay ku leedahay maxaad u badbaadin weyday hooyadeed laakiin waxay u sheegaysaa haddii ay isku daydo inay badbaadiso in dhammaantood ay dhimanayaan. way iska ooyeysaa gabadhan yar waxayna aragteen hooyadeeda uu qabsaday ninkii dilaaga ahaa halkan ayuu ka xirxirayaa gacmaha iyo lugaha waxauna u jirdilayaa si fool xun. Betty markiiba waxay soo gelinaysaa Darlin qolkan kadibna waxay kusoo xiraysaa armaajada waxay ku leedahay halkan ha kasoo bixin. waxay doonaysaa inay gabadhan yartaa nafteeda badbaadiso isla markiiba ilbaabka ayay ku xiraysaa wayna kasoo baxaysaa qorigeeda ayay soo qaadatay waxayna diyaar u tahay inay dagaalanto si ay ninkan isaga celiso. ilbaabka ayay fiirinaysaa iyadoo aad u xanaaqsan qorigana ku haysa meesha uu ninka dilaaga uu ka jiro laakiin markiiba gabadhii ilbaabka yarada iska soo furaysaa. hooyadeeda ayay daaqada ka arkaysaa oo afka ka xiran isla markiiba hooyadeeda ayay usoo dhawaanaysaa waxayna usoo dhiibaysaa gacanta iyadoo hooyadeed madaxa ka salaaxaysaa laakiin markiiba ninkii dilaaga ayaa gacanta qabanaya gabadhii yarada waa ay qaylinaysaa markiiba Darlin ayaa kusoo ordaysaa xabad ayay doonaysaa inay ku dhufato laakiin markiiba gacantii ayuu sii deynayaa waana ka baxsanayaa meesha. Darlin gabadhii yarteeda ayay laabta gelinaysaa isla markiiba ilbaabka ayay iska soo furaysaa gabadhii yareed laakiin Betty markiiba waxay arkaysaa hooyadeeda oo ciqaab daran u marsinaya ninkan dilaaga ah waa ay qaylinaysaa dhammaantoodna waa isku naxayaan. Betty hooyadeedna halkan ayay ku xiran tahay iyadoo lugihiiyo gacmihii uu ka xiray isla markiiba waa ay soo ordaysaa waa inay sayn kari weynaysaa way kasoo daba ordaysaa Darlin si ay u qabato laakiin markiiba way ka baxsanaysaa iyadoo hooyadeed ku dhegaysaa. hooyadeed ayay badbaadinaysaa si uusan u daldalin ninkan isla markiiba waxay isku dayaysaa inay xariga hooyadeed ka furto wayna iska ooyeysaa Darlin ilaa markii dambe ilbaabkii soo xiratay. ninkii dilaagana aad ayuu u xanaaqsan yahay markiiba middo ayuu soo qaadanayaa waxauna ka jarayaa gabadhii xariga. Darlin qolkii hilibka ayay soo gelaysaa iyadoo aad u xanaaqsan waxayna raadsanaysaa hubkii ay ku dagaalami lahayd. mindidan ayay soo qaadanaysaa waxayna doonaysaa inay dagaalanto ilaa markii dambe ay daaqada soo fiirisay si ay u ogaato ninka dilaaga meesha uu joogo laakiin markiiba dilaagii gadaal ayuu kasoo marayaa ilaa markii dambe uu dhegteedii ka jaray. dhegteeda ayaa dhulka ku dhacaysa aad ayay u qaylinaysaa Darlin way iska ooynaysaa waxayna arkaysaa dhegteedii oo halkan taala aad ayay u qaylinaysaa iyadoo iska ooyeysaa waxayna fiirinaysaa ninkii dilaaga ahaa waa ay isdhibtay waxayna ogaatay inaysan halkan ku badbaadayn ilaa markii dambe ilbaabkii fiirisay daloolkiisa waxayna arkaysaa Betty hooyadeeda oo halkan
ooyeysaa isla markiiba Darlin albaabka ayay furaysaa waxayna fiirinaysaa xaaladda ay ku sugan tahay waxayna arkaysaa ninkan dilaaga inuu gaariga ku jiro waxauna doonayaa inuu gabadhan dusha ka marsiiyo isagoo xujo uga dhigay haddii kale waa inaa guriga kasoo baxdaa markiiba go-aan ayay qaadatay waxayna kasoo baxaysaa guriga iyadoo soo dhaqaaqday waxayna isku dhiibaysaa ninkan waa ay soo ag istaagaysaa isla markiiba ninkii dilaaga ahaada ayuu farxayaa waa una fiirinayaa gabadhan ilaa uu markii dambe gacmihiisii uu ku taataabtay jirkeedii wejiga ayuu ka salaaxayaa laakiin halkan ayay ku wadataa mindidana waxay doonaysaa inay isku difaacdo ilaa markii dambe mindida ay ka gelisay gacanta baati hooyadeedna waa ay ooyeysaa ninkiina waa uu isxakameyn kari waayey ilaa uu markii dambe gaarigii dusha ka mariyey baati hooyadeed dhiigii ka baxayna waxa uu wejigii oo dhan ka bedelay Darlin aad ayay u qeylinaysaa waa ina naxsantaa waxay aragtay ninkii dilaaga waxuu kasoo degayaa gaariga laakiin markiiba way cararaysaa waxayna isku soo xiraysaa gurigii ilbaabka ayay hoos kasoo xiranaysaa mindideedii ayay soo qaadanaysaa Darlin waxayna isku dayaysaa inay istifaacdo ilaa daqiiqadaha ugu dambeeya mana doonaysa inay si dhib yar isku dhiibto habeennimadii markii la gaarayay ilbaabka iska furaysaa waxayna doonaysaa inay halkan ka baxsato gaarigan halkan yaala ayay arkaysaa laakiin waxay ogaanaysaa inuusan gaarigan wax fura uusan ku jirin waxayna isku dayaysaa inay dib ugu soo laabato guriga laakiin markiiba dhexda ayuu ka qabanayaa Darlinna halkaas ayuu ku qabtay ninkii dilaaga ahaa guriga ayuu gudaha usoo gelinayaa halka saaxiibteed Maarta ay soo kacday isla markiiba waa ay fiirinaysaa laakiin waxay ku leedahay badbaadi markiiba Maarta waa ay soo kacaysaa waxayna soo qaadanaysaa mindidan waxayna doonaysaa inay ka badbaadiso ninkan dilaaga mindida ayay kusoo tagaysaa Maarta si ay u badbaadiso laakiin markiiba waxaa soo gelaya ninkan askariga baaskooladan ayuu gacanta ku wataa waxauna ku leeyahay ma dhaqaaqi karti ninkii dilaaga ayuu ku qabanaya baaskooladii waxauna ku leeyahay waa inaad sii daysaa gabadha dhaawac ayaa ku yaala ninkii dilaaga ahaa isla markiiba waxuu sii daynayaa Darlin laakiin nasiib darro ninkii booliska ahaa waa la dilay waxaana dishay Maarta Darlin aad ayay isugu naxaysaa waxayna fiirinaysaa wejiga Maarta isla markiiba ninkii dilaaga waxuu iska saarayaa maskarkii ugu jiray laakiin saaxiibayaal waa ninkeedii Raymond waa ay naxsan tahay waxa ay arkaysaa Darlin markiiba waxay ogaanaysaa inuu ahaa ninkeedii ninkan qiyaamaya halka gabadhan lagu magacaabo Maarta ay tahay xaaskiisii waa ay walwalsan tahay waxayna dareemaysaa muruga aad u fara badan waa uu soo fiirinaya waxa uu ku leeyahay gabadhan waa xaaskaygii ilmaha calooshaada ku jiran ayaan doonaynaa inaan la baxno markiiba baaskooladii ninkii booliska ayay soo qaadatay iyadoo ku qabatay waxayna ku leedahay soo dhowaan iyadoo aad u xanaaqsan gadaal ayay soo baxaysaa Darlin ilaa markii dambe ilbaabka ka baxday waxayna doonaysaa inay baxsato waa ay soo cararaysaa waxayna u imaanaysaa gaarigan waana gaariga ninkii booliska ahaa isla markiiba gaariga ayay gudaha usoo galaysaa laakiin markii ay damacday inay dhaqaaqdo waxay arkaysaa Raymondna waxuu gaarigii ka saaray dabkii oo dhan waxaanu tusayaa xargihii laakiin markiiba baaskooladan ayay ku qabanaysaa waxayna ku leedahay soo dhowaan balse nasiib darro saaxiibayaal gabadhii waa ay qabteen Darlinna waxay gacanta u gashay ninkii dilaaga ahaa Raymond waa uu soo jiiday xaaskiisii waxauna dib ugu soo celinayaa gurigii waxaa la gaaray waqtigii foosha ay dhali lahayd gabadhan isla markiiba lugihii gacmihii ayuu ka xiray waxauna doonayaa inuu si khasaba uga umulsiiyo gabadha Maarta waa ay ku qoslaysaa waxayna ku leedahay markaad ilmaha dhashid waa aan qaadan doonaa ilmaha aniga ayaana korsan doonaa adiguna waa dhiman doontaa waa ay ku jeejeesayaan waxayna ku sameynayaan wax kasta oo foolxumaa waa ay qilinaysaa waxay ku leedahay ilmahayga ii badbaadiya ilmihii yaraana waa ay kasoo saareen caloosheeda subaxnimadii ayaa la gaaray kadibna gaariga ayay soo gelinaysaa ilmihii ay ku waday boorsada Maarta aad ayay u faraxsan tahay waxayna heshay ilmo suunkii ayay u xiraysaa ilmaha waxayna isku diyaarinayaan inay meesha ka tagaan laakiin markii waxay weydiinaysaa naagtii aaway isla markiiba waxa uu tusayaa indhihii gabadha waxauna ku leeyahay indhihii ayaan kala baxay mana noola waa ay dhimatay halkan ayay Maarta taala iyadoo labadeedii indhood uu ka maqan yahay ilmaheedii caloosha ku jiray ee 9 bilood soo wadana waa laga qaatay daawadayaal filimkeeni halkaas murugada ayuu ku dhamaaday waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalka fikirkaaga saaxiib qaybta commentiga nagu reeb